ganacsatada Soomaalida ee qaadka ka dhoofiya wadanka Kenya geeyana gudihii wadanka ayaa maanta kulan ay isugu yimaadeen magaalada Nairobi waxay cabasho ka muujiyeen qaabka loo maamulayo qaadka waxayna si gooni ah uga cabanayeen wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo rag kale oo sheegeen inay ka socdaan dawladda Soomaaliya oo soo wakiishay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ganacsatadan ayaa fariin waxay u direen madaxweynaha waxayna ka codsadeen in ganacsiga qaadka laga dhigo ganacsi xor ah oo sidii hore xaaladda lagu soo celiyo madaxweynaha waxa waaye magacaagay ku dheelayaan nimanka ku dheelayaan waxa la yiraahdaa waa wasiirka maxaa la yiraahdaa aajir nin wasiir aajir hebel Roble Maxamed Cabdullaahi Maxamed Roble nin la yiraahdo Cadnaan nin la yiraahdo Liibaan Suluk haddaad adigu waa inay dawladdu wax ka qabataa magaca Xasan Sheekhaana soo diray ku jooga wadanka noogu yimaadaan annaku dad masaakiinaha nahay waxaan waa intaas sano ka shaqaysanaynay 3 sano meel noo celinay waxay niyeysanayeen ayaka qalbiga ka galay farmaajo hadda kor walaalkiisu xiree annakana in loo xiro ay rabaan in aqliga ku yimaadaan ma soconayno mana qabato lama qabato mudana madaxweyne waxaan ka rabnaa inaan helno jawaab degdeg inaan ka helno madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu u fadhiyo free trade inuu u fadhiyo hadal la kureeyay dalka Tansaaniya ganacsiga horta oo wadamada la isku furo oo Afrika la isku bariga Afrika Soomaaliya ay ka mid noqoto marka ma suurta gali kartaa Soomaaliya afar wiil xiranaysa oo ganacsiga dhamaa ay xiranaysa iyo adduunyadii baan wax la qaybsanaynaa oo ganacsigii baa la isdhex marinayaa adduunka bal madaxweynaha Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya waxa la rabaa bal inay is waafajiso iyadu is saarto dadkaygii baa cunaq qabateynaya 10,000 oo qof ama 20,000 oo qof oo ka shaqayn jirtay iyo laba wiil oo saaxiibaan nahay baa shaqadii qaadanaysa oo xoogaysa waa ceeb waa sharaf darro waa waxa loo qaadan karin dawladda Soomaaliya ilaahay ku tahay waxaan ka hadlaynaa Cabdullaahi Raanimin tuugo soo baahistay oo soo aaday wadankan u soo aadin ay dad masaakiin ay ku tuntaan ayagoo isticmaalaya magaca Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya Cabdullaahi Axmed Nuur ninkuu ugu horeeyay 30 milyan ku faana ninka labaad waa Liibaan Suluk nimay dhahan iyo afar tuug anaga nolol oo nala degan oo isku meel aan degannahay ninka Liibaan Suluk Cadnaan iyo qaar kale oo badan oo dawladii hareeriga nimankii hareeriga oo gurguuranaya horta waxba naga qaadimaysiin halkaan wax nooga qaadimaysiin xaqana wax nooga qaadimaysiin waxaan u sheegayaa dawladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud anigoo ku hadlaya magaca ganacsatada Soomaaliya ee Kenya degan iyo Soomaaliyana degan inuu ilgooniyo nagu fiiriyo calanka buluuga annaka qadarin weyn uu naga mudan yahay kan hadda waraaqda wata iyo annaga calanka waa u simna horta waxa asaga kaligiis maanta xuquuq uu ku leeyahay oo $7 raadina uu leeyahay 7 aad raadina annakana waa raadinayna canshuurta nafteeda uu raadinaya canshuurta dawladda askale dadka bixiya canshuurta bixiya annaga xamar canshuuraan ku bixinaa diyaaradaheena canshuur ay bixiyaan maxay ahayd annaga qaadka in canshuur laga qaada suuqulay ku dhihi karaan awood ay kula imaadeen ay ku dhihi karaan $7 intee ka socotaa way intee ka socotaa annaga meel ay ka socoto $7 ma ogin balse waxaan inka filaa inta joogtay inta maqanba annaga guddi inta lagu soo dhadhoobay karaani annaga guddi nooma aha bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa mahad u sugnaatay xaaladda waxaan rabaa inaan laba arrimood ka hadlo anigoo ah Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oday Soomaaliyeed nabadoonka arintaas aan ka hadlaa labada arrimood waxa weeye arinta Soomaaliya iyo Somaliland inaan wax ka taabtaan rabaa arinta Somaliland waan dib baan u dhiganaa Soomaaliya ku hormaraa 2022 bishii shanaad May 15keedii baarlamaanka Soomaaliya cod aqlabiyad leh ayay Xasan Sheekh Maxamuud ku doorteen 30 casho kadib ayuu rasuul wasaare soo magacaabay Xamse Cabdi Barre rasuul wasaarihii oo 40 casho maraya waxba waa dhisi waaye dawlad lama haayo maanta waxaa dawlad la'aantaas u kooskaraysan laba arrimood Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii fariisad diiday oo caalamka dhan cagta mariyay oo wax u dhisan aan la arag oo la yaaban yahay iyo wasiiradii hore fashilmay
oo farmaajo la fashilmay oo xasan sheekh maxamuud waagi hore la fashilmay oo taagan oo ayagu safkii soo buuxiyo haddana raba inay wixii haddana ayagu wasiiro noqdaan horena ay 2 mar 3 mar ka badan u soo fashilmeen labadaas arrimood ayaa koos garaynay wax dhismi waayeen maamul goboleedyada madaxdooda dhammaan xisbiyada dhammaan labada gole ee baarlamaanka madaxdooda odayaasha dhaqanka iyo culimada diinka siyaasiyiinta dadka waxgaradka dhammaan waa in laga shaqeeyo oo lagu barashar gareeyaa nimankaas wasiirada fashilma inaan la keenin oo la badbaadiyo Soomaaliya new face wasiiro cusub oo 40 sano khibrad leh waa in la soo daayaa oo wasaaradaha la geeyaa waa in laga hor wareegaa kuwa fashilma yeelimayno kuwa fashilma ma yeelayno hanala ka joojiyo taasaan ku talinayaa xamse cabdi barre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kuwaas markaad keeni leed waan isxasishaa baarlamaanka iyo maamul goboleedyada haddii la keeno wasiiro fashilma dhammaan waa inaan la ansixin waayo ma doonayno jugjug halkaadi joog nin horuu fashilmay oo horuu qaribmay maalin walba in la ku soo celceliyo oo la yiraahdo xisbigayga ka tirsan yihiin ma yeelayno waa diidnay taa markaan ka baxo waxaan la hadlayaa laamaha ammaanka dadkii tooreeyaa lagu laynayaa basooladaa lagu laynayaa waxaa lagu laynayaa qarax war waa inaad amniga ka